kulanti wanaagsan dhammaantiinba mar kale kuna soo dhawaada barnaamijyada taxanaha ee labadii toddobaad ee tagay aanu idinka soo gudbinaynay cidhifka koonfureed ee ugu shisheeya ee adduunka iyadoo marka la eego waddamada waqooyiga Ameerika gaar ahaanna dhinacooda shishe saacadda marka la eego ay kala horeeyaan in ka badan ama gaadhaysa ilaa 24 saacadood oo laga yaabo marka New Zealand ay u tahay isniinta oo kale tusaale ahaan xagga weli ay ku jiraan axadii. My people, the Māori, arrived by canoe in the islands of Aotearoa, or New Zealand, just 1,200 years ago. Dance is part of our everyday life. It's our way of carrying our culture into the future. waddanka New Zealand Soomaalida badankeedu waxay soo galeen ilaa 22 sanadood ee ugu dambeeyay inkastoo badankoodu markay sharciga weyn helaan ay u soo guuraan ama u soo wareegaan waddanka Australia oo ay daris yihiin oo ay ku doorbidayaan xagga nolosha iyo xarakada dhaqaalaha laakiin waxa la qiyaasayaa in Soomaalidu waqti aad iyo aad xilligaasi ugu horeeyay ay soo galeen waddanka New Zealand. Soomaaliga ugu horeeyay ee New Zealand yimaada waxaa la oran jiray Saleebaan Axmed 1901 ayuu New Zealand yimid ninkaas waxaa la eegay arkiifyada New Zealand la baaray inuu magaalada Wellington markab ka raacay iyadoo aan la garanayn waqtiga uu soo galay ma diyaarad inuu ku yimid iyo inuu markab ku yimid laakiin 1901 baa laga helay inuu Wellington ka raacay markab Saleebaan Axmed baa la oran jiray ninkaas wax kale oo aan ka hayno ma jirto ninka ka bacdi 1979 ilaa 90kii waxaa jiray dhalinyaro Malaysia ka soo gashay oo Asia ka soo baxday oo timid New Zealand oo asylum isku yimid oo ilaa 20 qaar ka mid waxa la bixin magaca Maxamed Soomaali inuu jihada ka guuri halkan Maxamed Soomaali baa lagu bixiyay waayo marka Soomaali lama aqoon rag ilaa 20 dhalinyaro bay ahaayeen qaarna Wellington bay joogeen qaarna Auckland inta ka bacdi 20 dhalinyarada oo jooga 1992 ayaa Soomaalidu ugu horeysay qaxooti ku timaada waddanka New Zealand ay yimaadeen magaalada ugu horeysay Hamilton 1993 bay yimaadeen 92na way ahay nambarkoodu waxa maanta inagala jooga Cabdirasaaq Cabdi oo halkan iman doona ayaa ka mid ah dadkii markaa yimid 92 qoys qof ee Soomaali oo Hamilton la dejiyay ayaa ugu soo horeeyay dad si baaxad leh u yimaada New Zealand ka bacdi 100 qof ayaa ku xigay oo odayaasha Cabdi ka mid yihiin markaas ka bacdi Soomaalidii ay furatay Umar Carte ayaa markii dawladda Ali Mahdi la dhisay ayuu wuxuu wafti ku yimid Malaysia Don King nin la oran jiray oo markaas safiirka wasiirka arrimaha dibadda New Zealand ayuu arkay wuxuu yiri ma dad naga qaatay qaxooti baan inaa waxbarasho loo keen sidaas markaas 92 qof lagu soo qaaday New Zealand markaa waxay aad u dareysay women at risk hadiya goor dadka dhibaataysan ayay aad u soo qaadaysay halka Canada iyo Mareykanka iyo Ingiriiska iyo ay xulan jireen oo dadka creamka ay aqoonta leh sida ay arkaysa Mareykanka u buuxaan ama Ingiriiska u buuxaan waxay ka xulanayeen marba dadka aqoonta leh laakiin New Zealand waxay ku fiicnay dadka dayarta ay soo qaadaysay laakiin dadkii baa markii dambe waxay yara soo dalbadeen dadkoodii New Zealand Soomaalida marka la soo geegeeyo waxa lagu qiyaasaa 6,000 qof inay yimaadeen New Zealand magaalada Auckland oo ugu weyneed 2,500 oo qof ayaa la dejiyay magaalada ku xigta waxaa la dejiyay 1,500 magaalada Wellington 1,000 iyo magaalada Christchurch 1,000 ayaa qiyaas ahaan qaxooti ku yimid oo la dejiyay magaalooyinka haddaba maxaa isbedelay weyn baa ku yimid 10 sano ugu dambeeyay waayo 92 baa ugu soo horeysay maalinka waxa weeye 20 sano ay joogaan ragii ugu soo horeeyay waddanka waxa markaa aan dhacday yimid dhalinyaradii ku timid iyagoo waaweyn oo 13 jir 14 jir ah xagaana iyagoo 6 jir ah dagaalku bilaabmay oo aan iskuul helin markii halka yimaadeen waxay la kulmeen in iskuuladii ay la qabsan waayaan waayo da'dii baa lagu fadhiisiyaa waxbarashada
waa meel lagu hayo shimbiraha astaanta waa waddanka New Zealand shimbirta iga dambaysa halkaas kiwi baa la yidhaahdaa and Rob, what is this one called? It's a Kia. Kia. It's a tan waxa Kia. la Kia shimbiruhu taariikhda waddankan waxay kaga jiraan meel aad iyo aad muhiim u ah. Tell me, how important is the birds Okay. to the Maori people? Our birds are very important to us. They were our actually main food source before the European came along with his pigs and his cows and his sheep. Okay. Rob wuxuu ii sheegay in dadka Maoriga ah oo isagu ka soo jeedo waa dadka asal ahaan waddankan loogu yimi ee Europeans-ku ay ugu yimaadeen inkastoo iyaga qudhoodu 1200 sannadood ka hor oo kaliya ay yimaadeen waddanka New Zealand shimbirahan ay u isticmaali jireen buur cunto ahaan oo waddankan ari iyo lo midna laguma aqoonin waxa ay la yimaadeen xoolaha kale ee waddankan maanta caanka uu ku yahay lo'da iyo arigu Europeans-ku markay yimaadeen that was how long ago About the late 1700s was when Captain Cook first discovered New Zealand. waa markii Captain Cook ninkii la oran jiray ee sahaamiyaha ahaa uu helay waddanka New Zealand oo ilaa 1700 ahayd waliba qaybteedii dambe so what else do you guys used to eat apart from the birds? Okay, so birds were our main source. We would also eat our fish, eels. kalluunka cuni jireen Yeah, lots of our seafood as well because we're an island nation. So lots of seafood, lots of shellfish. Okay. kalluunka aad iyo aad u cuni jireen iyo waxyaabaha badda laga helo maadaama waddankani uu yahay jasiirad weyn ama laba jasiiradood oo kala go'an so tell me about your friendship with the Somalis, Rob. I know you're a good friend of the Somalis. Yes. How long have you known the Somalis? Okay, so I've known the Somalis for about 5 years. And I've worked very closely with a lot of them over the last. I know 3 to you're 4 one of years. them now. Yes. Oh, they're becoming Maoris. Yes, they are brothers. wuxuu yidhi Soomaalida 5 sannadood baanu saaxiib ahayn waana dad aad iyo aad u wanaagsan Is there any similarities between the Maori culture and the Somali culture? Yes, I think very family-based, okay, very family-orientated cultures. Maoris are, and I see that very much with the Somalis. Rob wuxuu sheegay in dhaqan ahaan Maoriga iyo Soomaalidu ay wax badan wadaagaan oo ay ugu horeysay buu yidhi iyadoo wax waliba ay ku salaysan yihiin qoyska. If I go back to the birds, kiwi. Yeah. I was told it stays awake all night and it sleeps all day. Yes. Even like some of the Kiwis of today. yes. shimbirtan kiwiga oo waddankani caan ku yahay laga yaabo Soomaali fara badan inay ku xusuustaan kabihii baalashkii kabaha lagu baalashayn jiray oo kiwi la oran jiray shimbirtan uu ka soo jeeday wuxuu yidhi habeen oo dhan way soo jeedaa shimbirtaas kiwigu maalin oo dhan way hurdaa marka dadka saasoo kala yeela ayaa kiwis iyana leeyahay so what do you think of the Somalis as a people? Are they horrible people? Oh, no, fantastic people. Like I say, I've worked very closely with a lot of Somalis over the last few years in my role as a driving instructor and as a testing officer, and I've found them to be wonderful people that, as a Māori, I relate to them very well. We relate well to it. We can communicate well together. And I think along the way I've learned, Māoris, we're a warrior race. Yeah. Okay? And I've noticed very much the same with them with Somalis. So, right. yes. And wuxuu sheegay waxa kale waxa uu sheegay in Soomaalida 5 sannadood ay macaamilayeen ay isu keentay shaqadiisa oo isagoo darawalnimada bara dadka dabadeedna uu aad iyo aad uga helay waxaan wadaagnaa buu yidhi Maoriga iyo Soomaalida xagga dagaalyahanimada oo dagaalku ku fiican yihiin oo la iskuma doonto. You guys are tribal society like the Somalis. Yes. Tell me about the Maori tribes. Yes. Which tribe are you? Okay, so I'm from Ngati Tuwhareto. Ngati Tu? Tuwhareto. Ngati Tuwhareto. Yeah, so that translates into Tu is Tumatoinga, which is our war god. So our tribe is known as the warriors of the house of the war god
Tumatoinga. Right. Okay, and that's our tribe's based in an area around the central North Island, around Lake Taupo. And apart from the major tribes, you have sub-clans as well. Yes. Waxaan weydiiyey in sida Soomaalida oo kale qabaa'ilka waaweyn marka laga tago ay jilibyada sii kala leeyihiin. Yeah, and so yes, we have sub-tribes. We call them hapus. Hapus? Yep, and they're family-based. We have a patriarch and a matriarch. Okay, and then from there. What about the major clans? What do you call in your language? Okay, we call them our major clans. Our tribes are called iwis. Iwis. Yeah, Iwis. yeah. waxaan ku soo gaarnay magaaladan oo loo yaqaano Vancouver oo ay iskuul ku yaalaan magaalada Hamilton ayaan ku weynay wax ku yaalo nala daawan doono iskuulo ay leeyihiin dadkaas ahaan waddanka ka soo jeeday Maoriga waa sidii ay u noolaayeen boqolaal sanadood kahor laakiin intii meesha aanaan gelin ayaa wax sidii beerka ama ku toofa ayaa ku weyn maxay tahay waxaas uu yahay waxaa iiga warramaya maxamed khaliif oo soo ka tirsan jaaliyadda soomaalida odayaasheeda ee magaalada Hamilton. maxamedow maxaa noo weerariyey cabdisalaan haddaa horta meesha xagga haddaad fiiriso waxaad arkaysaa ceeryaamaad arkaysaa hoosna dhulku waa qulaya haddaba waxaa qulaya waa maadada la salfar silfarka waa qulaysa oo ka imaanaysa dhulka hoostiisa oo ay soo samayso volkaanaha ama laarbaha ka imaanaya hoos laakiin aan dilahayn waxayna u eg tahay ukun qulantay marka halkan oo dhan iyo deegaanka oo dhan waxaa fulkaanaha qarxin baa ka soo socota miya fulkaanaha qarxin horay u qaraxday laakiin tan weli ma ay gaarin heer ay qaraxdo laakiin weli waxay ku soo socotaa had iyo goor waa la tijaabiyaa inay gaarto heer ay qaraxdo marka magaalada dhan baa fadhida volkaano oo cajiib moogtahay oo khatar baynu ku jirna haddaa meeshay naga eryaday khatar baynu ku jirnaa marka waxyaaba badan baan arki doonaa markaan sii socono dhulka oo mataqaanaa wadaqiiqayaynu arki doonaa ma garatay meelo biyo fulkaanaha waddankoo dhan baa caan ku ah Soomaaliya waddankoo dhan baa caan ku ah ooglaanta soo marteen fulkaanada ka qarxay waxaa kaloo hadda ilaa fulkaano markuu yimaado udrig wey mogta haya hadda magaalo ayna hadda aynaan aadin oo hadda liyaamahees atiinta kale jarsan carabta oo aad biri tegi doontaan haddii alla hayso marka dhulkan hoostiisa weliba magaalo deegaankan hoostiisa wuxuu caan ku yahay fulkaano active volcanoes marka waa fulkaano taagan oo had iyo goor cabir wadooda layska ilaaliyo waxaa qiiq meelaha ka baxayo aad arkaysaan oo dhan waxa weeye biyaha kulul ee dhulka hoostooda ka soo maaxaya oo la ii sheegay weliba in lagu maydho faa'iido caafimaadna ay leeyihiin hadda waan isku dayi doonaa Tell me about the origins of the Maori people. Waxaan weydiiyey Rob asal ahaan halka ka soo jeedaan dadka Maoriiska loo yaqaanee loogu yimid New Zealand. Okay, so although we're Polynesian, so our recent history is from Polynesia. Polynesia. Yeah. Where is Polynesia? Polynesia, it's the central part of the Pacific Ocean, and it stretches south down to New Zealand and north up to Hawaii. Waa ilaa Hawaii buu yidhi ilaa New Zealand laga soo gaadhayo Polynesia waa intaa Pacifica ee u dhaxaysa. Yeah. But prior to that, there is some information now that we originally come from the area around Lebanon, Syria, Iraq, known as, probably known historically as Phoenicia. Okay. And we have a very similar god. Okay. His name is Maui. Maui. Yeah, now he's been attributed with discovering New Zealand. Right. Now, the Phoenicians also have a very famous explorer called Maui. Okay. And wuxuu sheegay in la rumaysan yahay
in asalkoodii hore dadka Polynesian-ka ay ka soo jeedaan Lebanon iyo Iraq iyo Syria iyo. So how long ago was that? Okay, that's probably a good 5,000-6,000 years ago. Well, ilaa 5,000 ilaa 6,000 sannadood ka hor. imika buurta iga dambaysa ayaa fulkaanadii oo kaliya oo wali soo baxaysa ay ku hadhay laakiin intii kale dhulkiisana u goysay dhulkani buuru ahaa dadnaymkana waa tahay isu bedeshay harada weyn dad dalxiiso aad iyo aad u fara badan baa dhulkan yimaada si ay u arkaan fulkaanadan faraha badan leh ee Rotorua ka jirta iyo dhaqanka dadka Maoriga deedna cidii barigu qancin waayo halkanay gelaysaa deedna diyaaradaha arkaysaan ee baarkin garaysan ayaa lagu dhacayaa dalxiisku 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo la kareysanayaa deedna ilaa fulkaanadaas ay ku soo marinayaan ilaa aagan oo dhan ayay ku soo daawatiinayaan laakiin waa haddii jeebadaadu ay saamaxayso kaliya bal haddaaniya baafa isku noqonaynee hadhow baan idinla socodsiinaynaa waxaan yeelno maadaama caruurtiina waxbarasho aanay ka leexatay oo aanay waxbaran dadkiina aan wehelin waddankiina aan la qabsan noloshu waxoogaa way nagu yara adkaatay laakiin markii dambe waxaanu fahanay waddanka sidee aanu u samayn karna inaan u degno waxaanu garanay inaanu tacliinta xoog saarno waxaanu soo saarnay barnaamij la yidhahdo Somali Graduate Journal cabdisaaq ayaa kole ka warrami doona oo aanu noqonnay inaanu ku dhiirigelino in caruurtu wax barato taa waxaanu kaga guulaysanay marka in New Zealand iyo Australia dadka wax bartay ee ugu badan inay ka soo baxeen waddanka New Zealand ilaa 3 PhD masters dhakhaatiir nooc walba kala soo baxnay taas waxay markaa noo fududeysay in hadda ilba kasta uu ku habiyo inuu jaamacad ka baxo waxaan noqonay markaa dad tayo leh oo la qabsada waddanka waxaanu gaadhay dowladda inaanu ka qayb noqono xaalad maamulka dowladda waxbarashada qaxootiyaasha Soomaali baa Wellington Christchurch iyo Hamilton Soomaali ayaa dowladda la shaqeynaysa waxbarashada أنا waxbarashada ayaan u shaqeeyaa shaqo ahaan wasaaradda waxbarashada ayaan u shaqeeyaa taa ka sokoona de Soomaalida oo aan kamid ahay Somali community oo aan kamid ahay waxaan runtii aan ku dadaalnaa inaan waxbarashada ku dhiirigelino dhalinyarada gabdhaha iyo wiilalba taasoo markaa noo suurtagelisay runtii inaanu soo saarno book loogu magac daray ama la yiraahdo Somali Graduate Journal oo ah bookga mataqaanaa runtii halka sawirkiisa ka aragtaan oo akiyad ugu dambeeyay ومركان دولي runtii inaan taariikhdiisa aan dul maro in yar buuggan sida uu ku bilowday iyo maanta meesha insha Allah uu gaarsiiyay bulshadeena xagga sumcadda buuggan runtii wuxuu bilowday sanadkii 2008 wuxuuna runtii ku bilowday sheeko cajiib ah haddaan la wadaagaba anigu nin waxaan waddanka muddo joogay 23 sano nin markaa waxaan runtii u soo joogay ama soo arkay dhalinyaro fara badan oo laga sheegay Soomaalideena oo aan badnayn runtii hal qof wax uu sameeyay ummadii loo saaraya nin Soomaaliya wax lagu yara eedeeyay baa leeyahay Soomaalida waxa sameysay tiyo markaa runtii aan ka dhiidiyay oo markaa aan u gartay inay tahay in sumcadiina la ka dilayo waayo bulshadii inta badnayd iyadoo ay hagaagsan tahay oo wanaag uu fara badan yahay markaa ay runtii meesha timid in de markaa magacii un qof ama labo inoo naloo qabtay markaa runtii waxaan isku dayay bal maxaa marka bedeli kara يعني بالسبشنكا أو واحد لك أمسية محابة ذلك يا وضن كان ينتشجنو دل كان ينتشجنو وهذا صعطان يود ماذا غربها بأنت بدن وهذا ثرنتي واحد أخريوي واحد ميريا كأخريان أو شرايط كأخريان بيكون لي واحد حكومية مركز ده واحد اللي أذيك كنا ده قرار سماية مركز هاد كود في عدان واحد أيوب يا قرين هذه قرين مت صوماليا واحد سماية ورمي مت صوماليا واحد برتبة نور هنا مركز ده وجود شوية مركز هل كانوا قيلنا هنا مظاهرات يقعوا تتاجل هنا تاسع ورنت مركز لفتي أنا بوجا مركز عن مقالة إنه تشجنو أنا قبلونه
runtii markaa wuxuu ahaa dee community-ga halkan joogoon Hamilton oo iguma jirin xataa Somali community waddanka oo dhan xataa waxaan ka sameeyno journalka yaraa ee markaa ku saabsanaa jaalidina halkan joogta oo ilaa dhowr 20 qof oo graduates ay ku qornaayeen ayaa runtii wuxuu dheliyay inay dawladdii dhammayd dalka xataa ay ku faanto ilaa prime ministerka waddanka markaa joogay ay saa meel forum uga sheegto oo tiraahdo ayaga community yar oo Soomaali oo qaxootiga ku keenay horumarka ay ka gaareen ma taqaan waxbarashada xagga jaamacadda waa ka yaraaya Hamilton marka waxaan xusuusnay mar haddii ka yaraaya Hamilton halka uu gaaray malaha haddii la sii ballaarin lahaa oo lagu dara lahaa magaalooyin kalena waanu ka sii fiican lahayn marka wixii ka dambeeyay 2008 waxaanu markaa u bedelay journalkii inuu noqdo mid dalka oo dhan ma taqaan runtii ku saabsan oo markaa ardada waxbarashada ka qalan jibiya dibloma ilaa wixii ka sareeya runtii qaata inaanu ku soo ururino buugga yar si markaa ay tusaale ugu noqdaan jiilka dambe ee soo kordhaya ardada wax baranaysa high schoolka gaar ahaan oo markaa runtii ay u noqoto wax aynu ku faano oo bulshadeennina aynu kaga difaacno waxyaalaha miiriyada ma taqaanaa mar ka iman kara oo ah stereotype-ka iyo waxyaalaha negative-ka oo dhahno haddii aad aragtaan hal qof oo Soomaali ah oo wax sameeyay dee bedelkeeda waxaanu soo 20 Soomaali ah oo wax wanaagsan sameeyay marka adigu marka you choose inaad focus ka saarto ka yarka midka kaliya ama 20 ka wanaagsan taa marka waxay abuuraysaa marka runtii inay fikradihii dadka ay balance garayso oo marka ay warkaan bulshadii in laga helo dad wanaagsan oo aad u fara badan iyo mid ma taqaana marmar yani iska yara maarta saaqda ila bulsho 2,000 iyo xoogaa ah waa laga helayaa qof ama laba wax sameeya marka runtii journalkaasi ummadda Soomaaliyeed sumcad weyn buu keenay waxaana la ku ammaanaynaa ummadda kaliya ee qaxootiga magaca ku timid qaxootiga ee xagga waxbarashada ugu dadaalka badan ummadda kaliya ee garatay inay ma taqaanaa meel kaliya isugu keenaan oo buug kaliya isugu keenaan dadkooda wax bartay oo markaa aynu ka sameeyno celebration oo sanad kasta markuu soo baxo buuggaasi halka inta la isugu yimaado magaalo kasta laga dhigo ma taqaanaa yani xaflad laga dhigo lagu dabaaldegayo dadkii guuleystay ee ka qayb galay waxbarashada ama ka qalin jabiyaba waana runtii saad ka aragto sawirada ka arataan dad badan oo Soomaali ah oo field kasta leh yani meel kasta waxbarashada nooceeda noqoto engineering ha noqoto accounting nursing hatta dhaqaatiir hatta ay ku jiraan software engineers yani field kasta oo maanta aynu Soomaali aan laga helin runtii ma ay jirto waana wax runtii aad iyo aad aynu ugu faanayno ma hadeedana runtii ay iska leedahay runtii jaaliyada Soomaaliyeed oo dhan way ayaa ka qayb qaatay buugan anigu kaliya shaqadeeda waa inaan isku dabrido oo isku keeno kaliya laakiin magaalo kasta ayaa laga soo ururiyaa profilada dadka graduateska waayo waa publication ummadeena runtii wax badan ka difaacay waxaan garanayaa hadaan sheeko yaran in sheego in wariye ila soo xiriiray mar TV1 ayaan jeclaan ahaa ayagu markaa daneynaya inay wax ka qoraan sheeko ay iska maqleen kutana in ay jiraan Somali Youth Gang dad dhalinyaro Soomaaliya gang noqdo nala sheegay bal arintaas cabsaaqo aan ka wareysanay ay ugu yiraahdeen markaas aan ku yiri daan warta Somali Youth Gang aan ogahay maana arag laakiin sheeko kale oo ka fiican oo aad qori kartaan oo youth ka topic youth ka ayaan idin hayaa waxa markaa aan u diray marka soft copy aan u diray oo journalka ahaa ayaan gabadha u diray wayba yaabtayba waxay tiri dadka la iga sheekeeyay ama la igu yiri waa dad gang noqon raba qaarkood oo aan integration aan sameeyay Soomaalida sida la yiraahdo badanaaba oo ay dhaxdoodii ma taqaanaa doonta intaano qof inay ka qalin jabiyeen dad leh bachelor's degree master's degree PhD field kasta leh way runtii u qaadan weeyday sheekadii marka ay doonayso inay qortay marka hore ee negative ka ahayd halka ayay ku hartay marka waxaana bedelay waxa ahayd wax evidence ana cadeyn ah oo aan tusnay weeyaan marka hadaan la New Zealand runtii arinta aanu sameynay anagu waxaanu doonaa waliba inaan la wadaagno walaalaha Soomaaliyeed ee magaalooyinka kale ama wadamada kale jooga hadda gaar ahaan Australia xataa waxaanu doonaa ka sameynaa buugaan oo kale oo inaga codsadeen inaanu ma taqaanaa la wadaagno oo koobiyo sanad kasta loo geeyo waxaan rajaynayaa walaalkan Cabdisalaam inuu geeyo UK geeyo buuga inta uu qaado uu geeyo oo marka runtii aan aragno dad Soomaaliyeed oo waxbarashadii ka muuqda oo wadamada ay joogaan runtii laga tixgeliyo oo marka ayagu soo saaro hadda buugi u dambeeyay
kii u dambeeyey sanadkii hore soo baxay waxaa ku jirtay xataa gabadhii ugu horreysay ee noqotaa dhakhtarad waddanka New Zealand gabadhii ugu horreysay ee dhakhtarad ayaa xataa ku jirta inan baa isna hadda qalan jibinaya mid kale ayadana ku jirta filaya mar qalan jibin doonta marka waxa weeyaan runtii aad iyo aad ayaan waxbarashada uga muuqanay waana ku ammaananahay aad baan runtii ugu mahadcelinaya walaalada maanta inoo suurtageli runtii inaanu mataqaana inta aanu gudbino wanaagsan adinkuna naga gudbisaan oo aad u sheegtaan Soomaalida kale atraan de New Zealand waxay qabsadeen waxbarashada xageeda yaa lagu daydo horumarka marka aanu gaadhnay waxaa dhacday New Zealand in general Australia waa qaarad weyn sida Mareykanka Canada marka Mareykanka ama Ingiriiskaba ay dadka wax bartaa Mareykanka ugu guuraan because shaqada ay ka helaan dadku waxay aadaan Australia kuwa u dhashay ee New Zealandka cadaanka ay ku dhashay wadanka yaa taga marka anana caruurtayadii markay wax barteen waxay aadeen Australia Melbourne Brisbane Perth marka dhaqankeena Soomaalidu reerku ma kala maarmayo waxay noqotay marka in waalidadiina ay caruurtii markay shaqada ka helaan laga daba tago sida awgeed marka dadkii waqtiga aan sheegay maanta New Zealand waxa ku nool 1770 intii kale waxay joogaan Australia magaalada imika Christchurch ilaa 100 qof baa ku nool Hamilton baa ugu badan waxa maanta Soomaalidu ay joogto 700 qof baa ku nool Wellington Auckland 300 baa ku nool Wellington Auckland 500 sidaas baa damarkii u yaraada laakiin inta joogta waxyaalaha aanu Soomaalida dibadaha kaga duwanay waxa kamid ah waxaanu dad isjecel dad isku mid ah dad isku dhaqana dad ilaaliya dhaqankii magaalada aanu joogno waxa laga bilaabay Soomaali community ugu horeysay halka laga bilaabay waliba waa wali community baan leenahay halka aad wadamada kale ku arkayso community kala nooc taas waxay noo gaarsiisay inaanu noqono dad isku mid ah haddii aroos noqoto haddii aas noqoto dad isku mid ah baanu nahay dhaqanka aanu ku soo kordhinay Soomaalida ee New Zealand Hamilton laga bilaabay waxa kamid ah gabadh kasta oo la meherinayo laba oday baa noo calaamadsan labada oday baa midna wiilka gabadha u doona ka kale gabadha bixiya gabadha aabaheed iyo walaalkeed iyo wax la weydiinayo bale labada oday baa mas'uul ka ah sidaas gabadhii lagu bixinaya lagu wada dhisaya laga wada qayb qaadanaya waa dhaqan aan ka jirin wadamada aad soo aragteen ee Ingiriiska iyo Mareykanka iyo aad soo aragteen waxyaalaha aan ku faano weeye ee New Zealand laga abuuray manaaskiiba galoofay oo godolka weyday ma odagiibaa socdaalay oo socod ku raagay maday maha markay ooydo oo soo qabato ilmaha dhabta soo saarto heeska ku dhufato ilaahay wajiga waa gamaya hurdo inuu markaas uga gamaya hawaayin wax siisa hooyo hawaayin war dheera aabe هيا هواين ولا لا دورا هيا هواين صومالي وينتا بوكو قرياي waxaan soo dhaweynayaa marti sharafta qiimaha leh ee nooga timid safarka dheer noo soo galay si ay wax uga ogaadaan qaabka reer New Zealand ay u nool Soomaalida New Zealand qaabka ay u nool yihiin iyo waana ku mahadsan yihiin maalmaha quruxda badan ay nala qaybsadeen waxaan u maleynayaa wax badan safarrad badan ay galeen wax badan waa ka soo ogaadeen New Zealand waa idin soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba marka labaad waxaan rabaa inaan ku hadlaya magaca haweenka Soomaaliyeed ee Hamilton haweenka Soomaaliyeed ee Hamilton waxaan dhihi karaa waa laf dhabarta Soomaalida ku nool Hamilton markay noqoto dhanka waxbarashada waxay ka yihiin yani number badan markii loo fiiriyo dhanka wiilasha sidoo kale shaqada waxaan dhihi karaa almost dumarka jooga 90% waxay u shaqeeyaan banaankana way ka soo shaqeeyaan gurigana way ka soo shaqeeyaan doorkii hooyada iyo doorkii aabaha doorkii macalinka dowrar badan bay ka qaataan guriga oo wayna ku amaanan yihiin anigoo dhalinyarada ku hadlaayo waxaa rabay inaan wax yar ka sheego say tahay nolosha lagu noolaanayo wadamadan Yurubta ah iyo dhaqankeena Soomaalida saa isku haysanayno labada dhaqan in la isku wada qasab waaye because midna waaba joogtaa inaa waxbarashadoodii oo like abritid waa afkoodii iyo saa ula dhaqmi lahayd midna waa wadankaaga hooyo mid la iloobi karo wadanka hooyo inaa waxaa waaye aan iloobin oo lala socdo oo wax ka socdo
oo la iloobin oo future-kan insha allah markii wax kasta la barto wadamadan faa'iidadiisa laga yuusto in la noqdo oo wadankii wax lagu soo kordhiyo marka intaasaa rabay in anigana ku daro anigu ma rabo inaan ku dheeraado marka waxaan ka yar hadlayaa anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada isku xidhka community-ga iyo dhalinyarada haddii aan anigu ka mid ahay dhalinyarada community-gana ka tirsan waxyaalo badan oo aan dhalinyarada u qabanay una qaban doono way jiraan sida sportska in aanu ka ilaalino dhalinyarada waxyaalaha xunxun ma garanaysaa ay ku fognaan lahayn in aanu ka jeedino waxa weeyaan hawshaas waanu ku jirnaa waxa weeyaan kolley waa hawl adag aanu hayno dhalinyaradana aanu hayno waxa weeyaan marka magaaladan waa magaalada keliya leh hal jaaliyadeed oo runtii soomaalida wadagana ay mid isku tahay oo mid wada yihiin marka programka maanta waxyaalaha halkan inagu hayna waxaa ka mid ah runtii inaan bulshadeena Soomaalida ee magaaladan degan sidaan isugu xirannahay gabdhaheena hooyooyinkeena macnaha wiilasha dhammaan dhalinyarada iyo isaan maartay wada jirkeena u nahay inaan barnaamijkeena maanta halkan aan Soomaalida ummadda Soomaaliyeed dalkeena iyo dibadda joogtaba aan u tusi lahayn sida New Zealand maartay loogu nool yahay gaar ahaan magaalada Hamilton waxaan aad uga mahadnaqayaa oo barnaamijka maanta nagala soo qayb galay Ismaaciil Gamaadiid oo inoogu yimaaday Brisbane awalna ahaa aqoonyahanada wadankan in badan joogay ee Soomaalida in badan soo waday waxaan kaloo u mahadnaqayaa wariyaasheena senior wariyaasheena oo in badan Soomaalida u soo shaqeeyay xaalado kala duwan iyo meelo kala duwan u soo maray Cabdisalaan Harari aad baa loo yaqaanaa Ibrahim Umar Baafo oo labada inoogu yimaaday wadanka dibadiisa ayagoo maanta barnaamijka nagala qayb qaadanaya aan ku maamuusayno macnaha ma taqaanaaye wixii u qabsoomay Soomaalida inta badan ay wadankan ay joogeen sida waxbarashada iyo macnaha ma taqaanaaye arrimaha shaqooyinka isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale arrimaha kale ma artay ii sheeg muxuu ahaaye macnaha ma taqaanaaye Soomaalida inta qurbaha joogtay bal ay ku soo bandhigi doonaan sida ay tahay New Zealand iyo qaabka loogu nool yahay waxaan kale u mahadnaqayaa wariyaasha caanka ah senior iyo junior baan oran karaa senior Cabdisalaan Harari and junior Baafo Ibrahim Umar Baafo oo runtii aad baryahan dambe taariikh ahaan Soomaalida intii burbur ku dhacay ka horba aad ugu basaxyada ama taariikhaha Soomaaliya aad ugu boofir ugu ah anigu maanta waxaan fursad u helay anigoo halkan ku noolaa 17 sano haddana ku nool Brisbane hadiyo goor mar walba inaan imaado halkan oo dadkan aan Soomaalida kala qayb qaato noloshooda hakkan qoys noqono marna ku maqeelsheen ku yar kula haleela haddii aad maqli jirtay magaalooyinka geeska Afrika xeebaha ku yaala oo xilliga xagaaga la yiraahdo way karayaan magaaladaas ama magaalooyinkaasi aad iyo aad bay u kulul yihiin waxa iska ilow halkan imika naga dambaysa waxa weeye waa fulkaano dabadeedna waa dhulkiyo karkaraya deegaankan Rotorua wuxuu caan ku yahay fulkaanada iyadoo la ii sheegay in sidan ay tahay fulkaanadii active oo kulaylka soo deynaysa محمد خليفة إلى تاجروا مدة كنا على ودن كان نيوزيلند ودن كان محمد وتنوع عن كويس وماها وحيابو عن كويس كم ترى أبسل وصح وحيابو عن كويس بكم إذا ودن كان فلكانها كان وأنا أركيس إن ما أنت تضد كيف راح بدنا كإيمانية تشاينا ساوث كوريا إنجلند جابان وحاصل وحي وإيمانيان أرنتان ترادد marka wixii hodheelay aynu magaalada ku arkaynay oo dhan dalxiis ba ka buuxa wixii hodheelay magaalada ku arkaynay magaaladu waa wada hodheel waxaas leedahay hodheeladan degan haddana waa buuxaan waxaasna waxa loo imaanaya waa fulkaanahan iyo dhaqankii dadka Maoriga ah meeshan dadka qabiil baa degan qabiilka degan waxa la yiraahdaa Tiroa ha waa reerka halkan degan oo Maoriga ah sida noo qabaayil u leenahay kale marka waa waxaadna arkaysaa hadda marka halkan joogo Tiroa baan noqonaya ma Tiroa wad noqonaysaa Tiroa noqoto waa ha laakiin Tiroa marka noqonaysid waa inaad horta hore u tagtaa marayga meesha iyagu ay leeyihiin waa inaad tagtaayo isxaadirisaayo soo qarameeyo waa oo sanka la isu saaraa ma fahmay sanka la isu saaro waxa lagu leeyahay wadani baa tahay kadibna waxaad u tagaysaa odaga meesha waxa la Kamatua marka ilaa Kamatua aad u tagto sanka u saarto ma qarameysnid marka
waddankan waa saan imise meelood sanoo kale baa ku yaala magaalada iyo agagaarkeeda waa badan tahay waa badan tahay ilaa iyo waxaan u maleeyaa dhowr boqol baa ku taala ma fahantay waxaa kaloo jira keligeed ma aha meelo kaloo ka baxsan oo ka durugsan baa iyagana aad ku arkaysaa marka dhulka kan oo dhan way ku firiirsan yihiin waxa kan waana waxa ay dhahaan dhulka kan waxaa hoosta kaga jira marka dabcan dee tanoo kale aad bay u kulushahay way karkaraysaa kuwa la galaa way ka qabow yihiin soo maa ee lagu maydhaa kuwa lagu maydho sida hadda magaalada waxaa ku taal meel Blue Asian Spa Pool marka waxay sameeyeen way macneeyeen oo way waa la yar qaboojiyay waa la yar qaboojiyay biyihii baa waxaa la sameeyey hoosta waxaa laga soo geliyay tuubooyinka marka waxaa lagu soo daayay barkado barkadihii marka waxaa loo sameeyey in la ilaaliyo xaraaradii temperatureka marka waa 31 waa 41 laakiin tan haddaad gashada falfal tan ma jirto tan adiga ukuntu waa gubanaysaa tan khalaas maxamed aad ma hadsanta sida maxamed inoo sharxayay waxaa la isu salaamaa hab gaara oo mawrigu ay isu salaamaan haddii khaliijka aad aragtay dhaqankooda carabtuna saasoo kale isu salaamaan so how do you greet each other? Okay, so you shake hands like this. Yeah. Rob, let's go around. Yeah. That's how we say in Somali. And we say in Māori, kia ora. Kia ora. Yeah. So let's do it. Okay. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Hello. Kia ora. Rob.